waxaad rabtaa inaad gaar u noqoto cibaado waxaad rabtaa inaad 10 kan habeen iyo 10 kan maalmood gaar u noqotid shaqadaadu inay noqoto maxay inaad cibaadaysato maraad taagantoo tukanayso maraad quraan akhriyayso maraad wardinayso maraad nabiga ku sallayayso calayhi salaatu wasalaam inuu wardi ahaado waxaagu bilbalaayiin walmalaayiin inaad wardigaagu noqdo 10 kan maalmood oo halkaad sheekayn lahayd ama war kale akhri war xataa culamadii muslimiinta hore ma taqaanaa culamada badhba ramadaanta xataa waxay joojin jireen kutubtay akhri jireen kutubtii la akhri jiray kitaabku soo ma aha wax khayr laga helayo culamada badhba kutubta joojin jirtay imaamu maalik iyo waxaa la sheegaa xataa xadiidka uu dayn jiray xadiidkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam akhriskiisuu dayn jiray qur-aanku buu bixi jiray waa odhan jireen bishana waa bisha qur-aankay odhan jireen dabeetana cilmiga kale o dhan meel bay iska dhigi jireen cilmiga qur-aanku unbaa bay soo reebi jireen idan meesha raggii ragga ahaa uu kutubta cilmiga intuu ka tago uu xagga qur-aanka usii guurayey ama wardiga usii guurayey haddaad adiguna xagga sheekada usii guurto iyo internetka waa mid subxaanallah soo baxaysa marka ictikaafkeenu uma ekaanayo ictikaafkii raggaa hore ay ictikaafi jireen haddaba nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii uu dhimanayey 20 baab uu ictikaafay baa la yidhaahdaa 20 imaamu zuhri baa laga sheegaa عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله نبي كما تجين بيرسو مدينة ويمي إنه معتكف في هاي إذا طبعا كان هبين إن هذا اعتكافته أو ورديده أو قرآن أخرده أو صلاة كتيد أو هبين يمالين بمساجد كتشوكتيد أيها هبو waxaa kaloo sii muhiima inaad de habeenkii baadi doontid khatarta ahaa laylat alqadr oo uu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam 10ka dambe in laga baadi doono oo uu haddana yidhi iltamisuuha fi lcashri alawaakhir waltamisuuha fi kulli watrin buu nabigu haddana fi kulli witrin war 10ka dambe ka raadiya oo haddana waxaa ka sii raadisaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam habeenada witirka ah habeenada witirka ka sii raadiya oo maxaad qaban waxaad qaban Aisha waxay tidhi oo ilaahay hadduu ila kulmiyo maxaan yeelaa xadiidka ibn maaja iyo tirmidi ba warinayaan sheekh albanani saxiix ayay sheegay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam quulii allahuma inaka cafuwun كريم تحب العفو فاعف عني وأعتد هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إلى أهيو مدو حافية بات إيه يعفي له وعفي رجعل إيه ربه يعفي له إذن هبين كان سيأقول راض عيسو بريد إلهي بضي بريد إلهي بضي وهبين كن نبي قليل فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم حديث أحمد النسائي